Shaqo la'aan waa helid la'aanta fursad shaqo oo uu heli waayo qof shaqaysan kara. Qof raba shaqo oo raadinaya haddana aanan helin ayaa lagu qeexaa shaqadoon aan weli shaqo helin. Qeexiddan waxaynu ka fahmi karnaa qof walba oo baagamundo ah in uusan shaqo la'aan ahayn, sida ardayga, waayeelka howlgabka ah, curyaanka, iyo kan ka maarmay shaqo oo dhan. Lama raacinayo in ay shaqo la'aan ama baagamundo yihiin. Soomaaliya oo ah waddan muddo dheer la daalaa dhacayay dagaallo sokeeye, deganaansho la'aan siyaasadeed, abaaro, waxbarasho la'aan oo sababtay dhaqaale burbur muddo dheer ah oo saameyn ba'an ku yeelatay suuqa shaqada, gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay. ILO, oo ah Ururka Shaqaalaha Adduunka, ayaa 2016 qortay in daraasad ku saabsan celcelis ahaan dakhliga qofka Soomaaliya soo gala sanadkii in uu dhan yahay $226. Xogtan ayaa ah mid fajac weyn keenaysa marka aad wax ka ogaato dakhliga qofka Qatarka u dhashay soo gala sanadkii in uu dhan yahay $141,543. La yaab soo maahan farqiga, daawade. Jaantus lagu muujiyay heer nololeedka bulshada Soomaaliyeed ayaa lagu qeexay in 73 ay yihiin faqiir, halka 43 oo ka mid ah ay ku adag tahay nolosha. Waxaa intaas sii dheer oo daraasad qaar lagu sheegay in ka badan 70% dadka Soomaaliyeed da' ahaan in ay ka yar yihiin 30 sano jir. Tan oo macnaheedu noqonayso in dhalinyarada ay ka badan yihiin dadka waaweyn. Dhibaatooyinka shaqo la'aan waxaa dareenkeedu ku badan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Inkastoo ay baahday shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed, ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro xoogaa yar oo horumar ah ka sameeyay shaqo raadinta oo u horseeday hannaan shaqo raadineed, ayagoo raacaya dhowr qodob oo isbiirsaday. Diinteena Islaamku waxay ka soo horjeedaa mashaqaystanimada, yacni baagamundada, oo si ula kac ah loogu raago, waxayna aad u dhiirigelisay in qofku uu shaqaysto, waxaana la isku amray in la fooftago oo la raadsado shaqo. Tani waxay caddeyn u tahay in qofka aadanaha ahi laga doonayo in uu fadhiga ka kaco oo uu ka miro dhaliyo waajibaadka qofka saaran ee ah shaqo raadinta. Dabcan, in aad tahay qof aqoon ama xirfad leh, waxaad doonaysaa in aad shaqo hesho. Ogow, shaqadu in aanu kuugu imaaneyn booskaaga oo lagaa doonayo in aad geed dheer iyo mid gaabanba u fuusho raadinta shaqada. Ha iska dhaadhicin in shaqada lagu helo dhalasho, saaxiibtinimo, ama ay la xiriirto qabyaalad. Qofna guusha ma helo isaga oon daalin. Ha iska dhaadhicin arrimahaas. Hubaal waxaad tahay guuleyste, shaqo hele waa haddii ay kaa go'an tahay. Talada aan fiidiyowgan kuugu soo gabagabeynayaa waxay tahay xigmad uu yiri Lao Tzu, oo ahaa faylasuf Chinese ah: haddii aad adigu noqoto adiga oo aadan noqon qofka aad ismoodayso ee dhalanteedka iyo riyada aad ku tahay, oo aanad isku dhararin ama la tartamin bulshada, waxaa hubaal ah in aad qof kasta ka heli doonto ixtiraam. Waxa ay tani ka dhigan tahay guusha dhabta ah ee aad ka gaari karto shaqo aad ku hananayso hanti waa in aad marka hore aad ahmiyad siisaa soo saaridda runta ee naftaada. Naftaada waa in aad u caddaysaa qofka aad tahay si ay u doorato maqaamka ay ka soo bixi karto. Isla markaana waxaa sahlanaanaya in aad u socoto sida aad u dhalatay oo aadan ku jebin laafi aadan lahayn. Haddaba, raadi waad heli kartaa.